maalin wanaagsan. Waxaan halkan idinku soo gudbinaya sidaan hore idinku ballan qaaday wadahadalkii dhex maray xuseen cabdulqaadir qaasim wasiirkii macdanta iyo khayraadka biyaha iyo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka Henry Kissinger Oktoobar 8 1976 galabnimo 3:45 saacad oo ahayd magaalada New York. haddaba warbixintan oo aan hore uga soo qaatay qaybta ka hadlaysa sida xogta kaalmada military uu Maraykanku siin jiray dowladda Ethiopia ay ku heshay Soomaaliya oo wasiirku fadhigan markuu soo hordhigay wasiirka arrimaha dibadda uu isku dayay inuu inkiro kadib markii ay xoghayntiisu ogaatay nambarka go'an uu sheegayna ay qirteen inay warbixinta wasiirka iyagu sheegaya ay run tahay. haddaba waxaa la soo weydiiyey inaan warbixintii ay ku wada hadleen aan soo gudbiyo wadahadalkii ay ku wada hadleen si aan u soo gudbiyo marka way dheer tahay laakiin qayb baan ka soo qaadanayaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan ku bilaabayaa kulanka wuxuu uu dhex maray wasiirkii macdanta iyo khayraadka biyaha xuseen cabdulqaadir qaasim oo uu weheliyo safiirkii Soomaaliya u fadhiyay New York Cabdullaahi Cadow uu weheliyo Cabdiraxmaan Jaamac Barre agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliye Maxamed Maxamuud. dhinaca Maraykanka waxaa uu weheliyey wasiirkooda arrimaha dibadda ku-xigeenkii sekretariga Xabiib baa lagu soo koobay magaciisa si kumeel gaar ah kaaliyaha xoghayaha Siili ninka la yiraahdo iyo Frank Weiser nin la yiraahdo oo ah ninkii qaadahaya noodka qaadahaya wixii lagu wada hadlo qorahayay. afartaas bay ayaguna ahaayeen. wadahadalku wuxuu u bilaabanayaa sidan marka waxaa bilaabahaya Kissinger baa bilaabahaya wuxuu yiri maxay tahay macnaha wasiirka arrimaha dibadda ku meel gaarka ah waayo wasiir xuseen cabdulqaadir qaasim wuxuu ku fadhiyay inuu yahay acting foreign minister of Somalia marka waa maxaad ka wadaa wasiirka kaloo macdanta iyo biyahana uu sheeganaya maxay la macnaa aad soo yiri wasiirku meel gaar qaasim oo u jawaabaya ayaa yiri waxaan ahay wasiirka macdanta iyo biyaha laakiin marar badan waxaan ku matalaa dowladayda shirarka caalamiga ah anoo wasiirkaas ah markii loo baahdo waxaan ku matalaa dowladayda shirarka caalamiga ah. Cadow oo safiirka ah ayaa ku darahaya warbixin yar sida dhabta ah waa wasiirka arrimaha dibadda hadda sida dhabta asaga ah buu leeyahay soo madarag Kissinger baa la muddo intee la ayaad joogtay New York wasiirka Qaasim baa la weydiiyay Qaasim waxaan joogay in ka badan 2 toddobaad maalmaha soo socda waxaan ku laaban doonaa dalkaygii balse si toos ah safarkaygu noqon maayo waxaa laga yaabaa inaan meelo ku hakado ku sii istaago. Kissinger baa yiri waxay u muuqataa inaad hore u go'aansatay inaad meelo ku hakatid waxa uu Qaasim waxaan isku dayayaa inaan ilaaliyo danaha dalkayga anigoo aan buuq samaynayn buu ugu jawaabay. Kissinger baa yiri idinkoo dal dhexdhexaad ah ayaad haddana akhbaarta saarantiin ama samaysaan waa buuq baad kicisaan waa buuq badantiin. Qaasim ayaa yiri waxay ku xiran tahay sida dabayshu u socoto ma annaga wararka samayna mise kuwa kale ayaa xaalad abuuro oo nagu qasba inaan ka falcelino. Kissinger waa inaad daawataa ama aragtaa aniga marka aan isku dayayo inaan war sameeyo waa inaan aniga haddaan anigu ahay kan akhbaarta abuuro waa inaad la socotaan markaan anigu war samaynayo. Cadow oo safiirka ah baa soo dhex galay saxaafadda ayaa had iyo jeer kugu dhow mar walba saxaafadda ka agdhow kuna daba guulaysa had iyo jeerna war ayaad samaysaa. Cadow ayaa intaa ku tuuray Henry Kissinger
saxaafadda mar walba kaa agdhow mar walbana warbaad samaysaa. Kissinger ayaa yidhi annaga iyo idinka sidee xiriirka naga dhexeeya. Su-aashaasuu hadalkii haddana u bootiyey, muxuu yahay xiriirka naga dhexeeya annaga iyo idinka. qaasim oo u jawaabaya, waxaan jeclaan lahaa inaan halkaas wax ka iraahdo. waxaan aaminsannahay in meesha ay jiraan fursado lagu hagaajin karo xiriirka naga dhexeeya. Kissinger, waan kugu raacsanahay inay jiraan fursadahaas. qaasim, haa waa jirtaa fursadahaas wax lagu hagaajin karo. waxaad soo jeediso qodob wanaagsan xilligii qadada. waxaad wax ka baranaysaa Afrika. marka bilaa ka hor intaysa fadhigaan dhicin way fadhi qada ah wada yeesheen oo wadamada Afrika oo marka kaasuu xusahayaa. Kissinger, in badan ayaan ka bartay daawashada siyaasadda Afrika. Soomaalidu waa dad adag, igama ahan dhaleecayn, laakiin waxaad ku dhex cayaartaan siyaasadda gudaha si adag. Siyaasaddaad si adag baad ugu dhex cayaartaan moogta. qaasim, waxaan u sheegnaa si furan qalbigeenna iyo maskaxyada waxa ka guuxaya. aragtidayada ayaan cabirnaa si furan oo waxa qalbiga iyo maskaxdayda ku jira. Kissinger, ma aaminsani in dowladaha Afrika ay koox ahaan cadow yihiin. wadamada Afrika marka la isku daro inay cadow noo yihiin ma aaminsanin. laakiin markaad eegto falalka dowladda Soomaaliya si sahal ah laguma oran karo inay yihiin kuwa aan dhinac la jirin. annagoo cadow uma aragno Afrikaanka, laakiin ficiladiinna dowladdiinna Soomaaliya markaan fiirino la idinkuma firin karo wadamada dhexdhexaadka ah. wadamo waxaa jiray la yiraahdo bariga iyo galbeedka midna aan la socono dhexdhexaad ah, Afrikana ay u badnayd. idinka la idinkuma tarin kara buu yiri. marka arrimaha caalamiga ah oo dhan marar badan way ka soo horjeedaan Maraykanka. arrimaha caalamiga oo siyaasadda arrimaha caalamiga oo dowladdiinu way ka soo horjeedaa kuwa Maraykanka. annaga mar walba ma ahaan karno kuwa qaldan. mar walbana annagu ka Maraykan ahaan ma noqon karno kuwa qaldan. marka aragti walba aan soo jeedino idinku waa ka soo horjeesataan, mana noqon karno. qaasim ayaa ugu jawaabay, aragtideenna Soomaaliya iyo Maraykanku waa inay yeeshaan aragtidayada Soomaaliya iyo Maraykanku waa inay yeeshaan xiriir aan ku jirin wax dareen colnimo. waa in xiriir saaxiibtinimo aan yeelanayo. su-aalo ama siyaasado gaar ah marka laga hadlayo waxaa soo gala qiimayn, mana ahan dhammaan hadaladeenna kuwo colaad salka ku haya ama colnimo ah. marka arrimaha laga hadlayo qiimayn iyo wixii fikiraa baan geysanaa, laakiin colnimo kuma sanayn. haddii aadan dareemin colo, annagu ma falcelin lahayn. haddaba marka aan dareenno colaadda baan annagu ka falcelinaa ma ahane. waxaan aaminsannahay inaan nahay kuwo aan dhinac la jirin. siyaasadda iyadu waa sidaa wey, annagu sidaa aaminsannahay sidaa wey. Henry Kissinger ayaa wuxuu ugu jawaabay, annagu ma diidno madax bannaanida qolooyinka dhexdhexaadka ah. dowlad walba oo Afrika ah waa madax bannaan tahay marka laga reebo Angola. laga yaabay Angola buu yiri 15,000 oo ciidan shisheeye ah waa caddayn xoogan oo dhinaca ay jirto tilmaamaysa. waayo waxaa saldhig 15,000 oo ciidan oo shisheeye ah deganaa markaas Angola. marka uma baahna buu yiri cidda ay la jirto in la tilmaamo. haddii aad leedahay inaysan jirin cadownimo ka timid Soomaaliya, haddana marar badan ayaa si toos ah nagaga soo horjeesataan, mararka qaarkoodna naga daba shaqaysaan. idinku sidaas u hadlaysa, laakiin waxaan aragnaa marar badan inaad aragtida ama fikradaha ama siyaasadda Maraykanka ka soo horjeesataan, marna ay dhici kartaa inaad naga daba shaqaysaan mogto. qaasim, taasi waa sawir aan dhammaystirnayn. waxaan jirin baa isku sheegtay bay ka dhigay. waa sawir aan dhammaystirnayn. waxaan daba soconnaa tallaabooyinka Maraykanka ee saamaynta ku leh dalkeenna iyo gobolka. tallaabo walba oo idinku aad qaadaan oo saamayn ku leh waddankeenna iyo dadkayagu waa mid aan isha ku hayno oo aan ka falcelinayno. annaga qaranka Soomaaliyeed jiritaankiisu waa noo muhiim. ficiladaada marar badan ma muujinayaan dhexdhexaadnimo.
ficilada maraykanku ma muujinayaan dhexdhexaadnimo. tusaale isii buu Henry Kissinger tusaale isii marka Soomaaliya waxay soo martay gumaysi xun qaasim baa oranaya ka hor intaan Soomaaliya xor noqon maraykanku wuxuu heshiisay la lahaa Ethiopia waxaan aragnay hub loo diray Ethiopia oo aan u aragno in waxyeello u yahay xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia waxaan aaminsanahay in xiriirkeena la hagaajin karo laakiin hubka aad u dirto Ethiopia iyo dacaayadda aad warbaahinta uga hadlayso ma caawinayaan xiriirka aan hagaajin lahayn ma caawinayaan waxaan aragnay bayaanka wasiirkiina difaaca uu sii daayay Kissinger maxay tahay sababta aan ugu malaynayno inaad ka hub badan tihiin Ethiopia waxaan qabnaa buu leeyahay sabab baa jirta aan aaminsanahay inaad Ethiopia ka hub badan tihiin qaasim taas waa khalad Ethiopia way naga xoog badan tahay waxaad nagu qasbaysaan inaan isdhisno isuna diyaarino ma aragno inaad ka qayb qaadanayso sidii xal loogu heli lahaa nooma muuqato inaad noqonaysaan dad raadiya xalka waxaad noqonaysaan dad gacan siiya dhinaca Ethiopia bay u muuqataa qaasim Kissinger baa wuxuu dhahay ma waxaad doonaysaan qayb ka mid ah Ethiopia su'aashaas uu weydiiyay qaasim maya waxaan doonaynaa xorriyadda qayb Ethiopia ka mid ah oo dadkeenu leeyahay Kissinger qaybta Ethiopia ma Soomaali ayaa degan goorma ayay Ethiopia qaadatay su'aashaas uu weydiiyay qaasim Ethiopia waxay qaadatay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed 1884 ilaa 1960 Ethiopia waxaa ka joogay kooxo wax maamul iyo ciidan yar taliyaal iyo saraakiil baa ka joogay hadda waxay xoojiyeen gacan ku haynta dhulkaas xaalkuna waa ka duwan yahay sidii hore waagi hore taliyaal iyo wax yar baa ku jira hadda way u soo guureen ciidan iyo waxay keeneen hub iyo wax walba Kissinger baa wuxuu oranayaa marka ma waxaad noqon doontaan col ilaa aad dhulkiina ka helaysaan marka colaadaasi ma taagnaanaysaa ilaa dhulkiina aad la soo laabataan buu weydiiyey haddana qaasim baa wuxuu ku jawaabay si kale aan u dhigo annagu kama tanaasulno xuquuqda dadkeenna iyo qarankeenna waxaan weli la noolnahay hageerdaamadii gumaysiga soomad arag marka su'aasha uu weydiiyey waxaa weeye ma colaad baad u joogaysaan ilaa aad dhulka ku heshaan markaasuu yidhi su'aashaada si kale aan u dhigo waxay noqonaysaa buu yidhi annagu kama tanaasulno xuquuqda dadkeenna iyo qarankeenna waxaan weli la noolnahay hageerdaamadii gumaysiga Kissinger ayaa oran waqooyiga Kenya Soomaali ayaa degan Kenyana ma dhul baad ka dalbanaysaan inaad ka soo ceshataan rabtaan qaasim baa wuxuu ku taasi waa xaqiiqo taariikhi ah dowladda Ingiriiska waxay sanadkii 1963 abaabushay gobol ay ugu magac dartay xuduudka waqooyi gobolkan mar walba si gaar ayaa loo maamuli jiray waana ka madax banaanaa inta kale Kenya 86% shacabka deegaankaas waxay u codeeyeen inay ku biiraan Soomaaliya laakiin Ingiriisku si kale ayuu go'aansaday xoogna waxa uu ka dhigay xaq annagu Kenya eed uma yeelayno waayo xalkaas waxaa ku qasbay quwad gumaysi waxaan si aad ah u eedaynaynaa Ethiopia maadaama ficilkeedu uu ahaa mid ulakac ah oo gumaysi ah waxaan haynaa dukumentiyo Ethiopian ah oo caddaynaya arrintaas markii waddamadii Yurub bilaabeen inay ku tartamaan dhulka Afrika Malilakhi labaad wuxuu warqad u qoray quwadaha gumaysiga isagoo leh annaguna waxaan rabnaa qaybteena Ethiopia waxay si xad dhaaf ah u weerartay dhulkeena sanadkii 1963 iyo 64 haddii aan quwado shisheeye faragelin oo saameyn ku yeelan masiibo ayaa ku habsan lahayd labada dhinac Kissinger
taariikhda wax badan kama qaban karno. taariikhda annagu wax badan kama qaban karno. Asaga hadda weydiiyey su-aasha. taariikhda annagu wax badan kama qaban karno, laakiin sidaad ogtahay xiriirka Ethiopia iyo Maraykanku ma ahan mid aad isugu dhow. ma fahmi kartaa waxa ka socda Ethiopia? su-aashaasuu weydiiyey. annagu taariikhda waxaan ka bedeli karnaa, history waxaan ka bedeli karnaa male, laakiin Ethiopia iyo annagu sidaas iskuguma dhowin. idinku waxa ka socda Ethiopia maxaad kala socotaan? buu weydiiyey. annagu waxaan nahay Qaasim, annagu waxaan nahay kuwo aad ugu dhow Ethiopia. waxaan si fiican u fahansannahay lana soconnaa waxa ka socda. waxaa halkaas ka jira cadaadisyo badan baa ka jira. ma awoodno inaan halkan ku soo wada bandhigno ama aan uga hadalno dhammaan arrimahaas, waayo inuu wuxuu rabay maxaad kala socotaa Ethiopia inuu si dadban wuxuu ka hayo oo ugu sheego. asaguna waa dareensan yahay. fadhiyayagu ma ahan buu yiri marka mid aan uga hadlayno Ethiopia iyo waxa ka jira. waxaan door bidaynaa inaan ka hadalno xaaladda maanta. waxaan rabnaa inaad na dhegaysataan, annaguna aan idin dhegaysanno. sababta xiriirka xun ee ka dhexeeya Maraykanka Soomaaliya waxay ka soo jeedaa dhibaatooyin qaran oo culus oo nahaysa. waxaan rabnaa in si nabad ah loogu helo xal dhibaatooyinkaas. xitaa ka hor kacaankii 1969 waxaan raadinaynay isfaham aan la yeelano Ethiopia. madaxweynaheenna wuxuu la kulmay hogaamiyaashii Ethiopia si loo abuuro jawi isfaham leh oo lagu xallin karo cadaalad, oo lagu heli karo xal cadaalad ku dhisan. laakiin weligeed jawaab togan lagama helin Ethiopia. arrimahan aad bay muhiim ugu yihiin Soomaaliya. sidaa darteed xaquuqdeenna ama ma nihin kuwa ka tanaasulaya ma nihin. hase yeeshee ma muujin doono dabeecad dagaal. annagu marnaba xaqa aan leenahay iyo xuquuqda dadka ka tanaasuli mayno, laakiin haddana ma ahan taas macnaheedu dagaal baan u taagnaanaynaa mar walba. dabeecad dagaal ma ahan. ma rabno inaan ka faa'iidaysano tabardarrida Ethiopia. waxaan doonaynaa inaan horumarino dalkayaga iyo gobolka guud ahaan. ma doonayno dagaal, gaar ahaan mid lala galo dad aan walaalanahay sida Ethiopiaanka. waxaan muujinnay rabitaan wanaagsan oo aan u jeedinay Kenya, iyadoo ay ku jirto xeerarka isfahamka iyo Afrikaannimada. waxaa laga yaabaa in maalmaha ka mid a dhibaatooyinkan la xalliyo. marka laga hadlayo xiriirka naga dhexeeya, doorka dowladdiinu waa mid go'aamiya. idinku door Maraykanku ku leeyahay. marka laga hadlayo xiriirka naga dhexeeya, doorka dowladdiinu waa mid go'aamiya. idinkaa iskale inaad xiriirka aan Soomaaliya Maraykanku yeelanayo siduu noqonayo. idinkaa iskale, doorkiina iskale. waa inaad raadisaan nabad, amni iyo xasilooni iyo kor u qaadidda isfaham. waxaan ognahay inaad taageero siisid dalal kale oo Afrikaan ah. annagu waxaan aaminsannahay in taageeradaas ay tahay inay aado horumarka ee aysan aadin hub. waxtarka Afrika taraysa waa inay horumarka noqoto, laakiin aysan hub noqon. Kissinger, waxaa jiro tuhun ah in aad idinku ka hub badan tihiin Ethiopia. waxaa laga yaabaa in suurtooyinkeenna uu qaldan yahay, laakiin waxaan aragnaa inaad hesheen hub aad u badan oo ka yimid midowga Sofiyeeti. Qaasim, waxaan la kulannay weerar 1963 iyo 1964. Ethiopia ayaa had iyo jeer naga xoog badan dhanka hubka iyo tirada ciidanka. waad fahmi weydeen xaaladeennana waad fahmi weydeen oo iska indha tiraysaan xaaladdan ku sugannahay. Kissinger, waxaan dib u eegis ku samayn doonaa xogahayaga sirdoon, bal arrinta dib baan ugu laabanaynaa buu leeyahay. Qaasim, waxaan aaminsannahay in uu door kaaga bannaan yahay aad ka qaadan karto. waxaan ka warqabnaa taariikhdaada iyo mabaadi'daada. ma fahmayno sababta aad u leedahay dabeecad colaadaysan
ama colaadeed oo aad kula dhaqmayso dal yar ma fahmayna markii labada hadal buu yidhi waxaan haynaa waxaan ka warqabnaa taariikhda iyo mabaadi'daada laakiin waxaan fahmi la'aanahay dabeecadda aad ku colaadinaysid dal yara baan fahmi la'aanahay eeg waxaad samayseen intii ay abaartu nagu dhufatay bal abaartu markay jirtay waxaad samayseen fiirsha buu yidhi Kissinger baa taalkood maxay ahayd waxa aan samaynay buu weydiiyey mid xogeyntiisa ka mid ah Zili baa wuxuu yidhi marka Zili baa wuxuu yidhi waxaan bixinay gargaar wuxuu Qaasim haa laakiin waxaad sheegteen inay jiraan saldhigyo ruusha meeshii gargaarka aad markaana siinayseen haddana waxaad wariseen inay ruushku saldhigyo military ku leeyahay waxaan ku marti qaadnay kormeerayaal si ay idhahooda ugu soo arkaan Kissinger baa soo galay wuxuu yidhi taasi waa sax dhammaan kormeerayaashu waxay isla qaateen aragtidaas xitaa kuwa markii hore ka soo horjeeday waxay soo dhoofeen iyagoo rumaysan inay jiraan saldhigyo ruusha Qaasim baa ku celiyay asaga marka ma rumaysan tahay taas Kissinger baa wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay in aanu ka badbaadi karno haddii saldhig Soviet uu ka jiro Soomaaliya uu ka jiro dhulka Soomaaliyeed haddaad saldhig siiseen uu meeshaa ka jiro annaga wax uu dhibaato aan nagu hayo ma wax uu noo geyso waa ka badbaadi karnaa Soomaali arag laakiin waxay ku xiran tahay sida aad u qeexdo saldhig Qaasim buu ku leeyahay haddii aad saldhig ku qeexdo meel ay ciidamada military joogaan oo lagu adeegsado qalabka dagaalka taas waa saldhig dalka Philippine marka aan heshiiska cusub la saxiixanay calanka Philippine ayaa ka dulbaban doona saldhigyada Mareykanka laakiin annagu ma diidayno jiritaanka saldhigyo Philippine oo kale saldhigyaan ku leenahay saldhigyada calanka Mareykanka ka dulusha laakiin annaga degan wax walbana waa noo yaalaan marka meesha wuxuu leeyahay Soomaaliya hadday ciidan ay joogaan ciidankuna hub ay keensadeen waa saldhig ciidan buu leeyahay ciidan Russian hadduu idin yimid Qaasim baa marka wuxuu oranayaa waa inaad wax badan ka ogaataa dabeecadda dadkeena waxa ficnaan lahayd bi Soomaalida inaad wax ka taqaanid Soomaali arag marnaba ogolaan mayno saldhig shisheeye maanta soo la socon hadalkan ku soo arba 76 buu leeyahay laakiin maanta ma oga waxa ka jira marnaba ogolaan mayno saldhig shisheeye malihiin saldhigyo ama xarumo military waxaan aragnay sawirro ka yimid dayax gacmeedkiina waan ognahay inaad tiri annaga ayaa gantaala haysanaa ee Soomaaliya gantaala yeelaan markii aan baarnay sheegashadaada waxaan ogaanay in waxa aad gantaal u qaadateen uu dhab ahaantii ahaa minaarada masaajidyada ka taagan oo dheer sawiradii la dayax-gacmeedyadu ay soo direen markaan fiirinay waxaad ku sheegteen inaan haysano gantaalo oo Soomaaliya ay yeelaan masjidyada minaaradaha ka baxay noqdeen Kissinger wuxuu ugu jawaabayaa waa laga yaabaa inaad tihiin kuwa dhagar badan oo gantaalada aad ku qarisaan masaajidda moogta niman khayaanoolayaal inaad tihiin masaajidku gantaalku isku dhex jiraan maxaa diidaya Qaasim waxaan masaajidka u furnay kormeerayaashii si ay u booqdaan ma haysano lacag aan ku iibsano gantaalo kormeerayaashiina baan soo tusnay masaajidka u furnay annagu ma haysano gantaalo lacag aan ku iibsano Kissinger marka wuxuu leeyahay ma aaminsan waxaan aaminsanahay buu yiri gantaaladaasi inaysan ahayn kuwa aad idinku leedihiin waxaan aaminsanahay gantaaladaasi inaysan ahayn kuwa idinku leedihiin laakiin aan ka tagno arrinta haddaba arrinta naga dhaafiyo ma nihin kuwa colaad idin qaba si kastaba ha ahaatee waxaan ognahay in meel walba oo caalami ah ama fagaarayaasha caalamiga aad nooga soo horjeedaan naguna diidantihiin taasaan anagu ognahay waxaad ka soo horjeedaan dadaalkii aan ka wadnay koonfur Afrika baad ka soo horjeedaan Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa kuwa nacadaadinaya annaguna waxaan u shaqaynaynaa nabadda
annagoo si dhow ula shaqaynayna madaxweynayaasha safka hore waa kuwa wadamada xuduudda la lahaa waqtigaas waddanka koonfur africa la yiraahdo soomaad arag wadamada xuduudka la lahaa baa safka hore la oran jiray waxaan diyaar u nahay inaan hagaajino xiriirkeena mana diidin sheegashadaada dhuleed haddii aadan rabin inaad xoog u adeegsato xalinta khilaafaadkaaga qaybtan intaasaan aan ku joojinaya laakiin waxaad ka dareemaysaa meesha ugu dambeysa wuxuu soo istaagay ma diidayno sheegashada aad sheeganaysaan dhul idinka maqan laakiin waxaan ka soo horjeednaa inaad arrintaa xalinteeda aad dagaal keliya aad ku wajahdaan soomaad arag xalinta khilaafaadka aad dagaal keliya ku wajahdaan inta bointusoo halkan aan intaan soo marnay ay isla mareen baan ku tusahayaa mogta soomaad arag waxay isla mareen marka hore inuu wasiirkaba uu yiraahdo maxay tahay wasiirnimadaadu ilaa loo micneeyo taa markuu ka baxay wuxuu yiri see xiriirka labada dal kan wuu sheegay wax walba inay dhinaca Mareykanka ku xiran tahay hagaajinteedu ayna diyaar u yihiin wuxuu kaloo sheegay inuusan ficilada Mareykanku ay ayagu yihiin kuwa colaada abuuraya kuwa buuqa abuuraya kuwani mar dambe Soomaaliya inay mar walba difaac ku jirto danaheeda iyo danaha gobolka oo Mareykanku uu faraha kula jiro sida hubaynta Ethiopia iyo daba ka reexidda Ethiopia wuxuu sheegay kaalmada uu bixiyo Mareykanku inuu wadamada kale uu siiyo laakiin Soomaaliya aan la siin xilliga ugu xumayd oo Soomaaliya kaalmo u baahnaydna Mareykanku uu meeshii uu kaalmo ay ka sugayeen uu dacaayad furay gantaala yaalo Raashiyaanka gantaala dhigtay markay isku dayeen inay ku qanciyaan kormeerayaashii albaabada u fureen ayba yiraahdeen meeshii ay iska bedeli lahaayeen runta markay gaaraan ay siiba inkireen ayna diideen inay Soomaaliya mar walba ay ayagu yihiin kuwa riixaya fogeynaya Soomaaliya ay diyaar u tahay inay albaabka xirto haddaba wuxuu yiri maxay ku xiran tahay inaan wanaajino xiriirkeena su'aashaas weydiiyay waxay ku xiran tahay buu yiri hubsi gacansiinta military Ethiopia aad ku haysid inaad ka joojisid mogta Soomaaliya Mareykanku ku leeyahay halirka si jirku ku leeyahay waxa uu leeyahay barka dambana uu leeyahay nin taariikhdeeda historigaaga iyo mabaadiidaada oo dhan la socona laakiin isil waxaan qaadan laanahay colaada dal yar sida ay u colaadinaysid nin noocaas adoo quwad weyn haddana in Soomaaliya ay idin tahay cadawtinimada booska koowaad ay idin ku jirto maynan fahmin buu dhaqankii lagu yaqaanay dad gobeed ma ahan buu leeyahay mogta Soomaad arag wuxuu dalbanayaa si uu u sheegayaa Soomaalidu waxay aaminsan tahay inaysan dhulkooda marnaba aysan u ogolaanayn inuu noqdo meel shisheeye uu saldhigto ay taa ka mid ahna ay ciidamo iyo dhul ay ama ay uga duulaan wadamo kale uu noqdo Soomaaliya ay noqoto Soomaaliya mogta aysan lahayn dabeecad noocaas oo ay shisheeye wadankooda ku keenayaan mogta Soomaalida dabeecadeeda baaran buu leeyahay ninkani ilaahay u naxariiso waxa la sheegay inuu dhintay laakiin runtu nin aad sida uu marka ugu horeysaba xusaya annagu qalbigayaga iyo waxa aan u aragno runta iyo dhabtan ka hadalaabayo Soomaad arag mana nihiin kuwa buuqaya kiciya laakiin waxaan ka falcelinaa kuwa kiciya waxay ayagu abuuraan kuwa abuuraya xaaladda iyo Soomaad arag oo ula jeeda ninkuu la fadhiyaba mogta marka anigu qiimeyntaydu waa sidaas weeye idinkeesa idin taala waxa aad ku qiimeyn lahaydeen iyo sidaad u arki lahaydeen marka dawlad leedahay sida aad u hadli karto dadnimo u leedahay mogta maanta waxa jira waxa weeye hay'ado yaryar kuwa jooga baana laga baxsan karin oo aan la fiirin karin wajiga macalkor aan loo eegi karin mogta 35 sanana waxa la hoos fadhiyaa tuugsi iyo baryo ma garanaysaa wax ay tahay aan la aqoon Soomaad arag meeshii la rabay adduunkan
sida ama awoodda iyo waxaad adigu aaminsan tahay inaad tahay baad ku socon kartaa kuna meel mari kartaa mogta haddaad liid u isku qaadatid gacan hoorsanayo fadhiyo baryo u fadhiyo somaad arag aan laguna abuuray inaad sidaa u noolaatid dee waa ayaan darrada haysata ummadda soomaaliyeed weeye laakiin waxa soo madheen dad baad lahaydeen qiimo leh awooyaal magac idiin sameeyaad lahaydeen kuwa maanta aad fiirsanaysaan inaad ku fiirsataan runtii ma ahan mogto inaad wax iska beddeshaan weeye qabyaaladda iyo kala qaybinta la idinku hayo meel ka sii xun meesha aad joogtaan ba idin dhigaysaa maanta intaasaa oranaya macsalaame